maadaama aad qurbaha ku kortay noloshaadii oo dhan aad ku qaadatay intii badnayd kuma dhahayno xildhibaan Ismaaciil sidee buu ku yahay soccerka ama footballka xagga Yurubiyaanka iyo Afrika footballka Mareykanka ee halka inta la gashto la ordayay see isku tii marka Soomaaliya hadda marxalad aad u adag bay maraysaa saa ula socod runtii in cunuqabatayntii laga qaaday in runtii hadda xaalado badan oo badda Soomaaliya xitaa ay ka socdaan iyo runtii la dagaalanka dadkan argixisada ah marka qodobadaas oo dhan barto si guud buu runtii u taabtay safiirku hadafkana wuxuu ahaa runtii maxaan xildhibaanadan ay kula shaqeyn karaan dawladda Mareykan si u fududeeyaan xiriirka xildhibaan waxa jira dhaliilo loo soo jeedinayo habkii loo qabtay kulankaas oo dad bulshada dhexdeeda saameyn ku leh Ohio loo diiday ama laga saaray shirka dhaliilaha maxaa ka jira maalintii ugu dambeysay runtii waxaan geynay golaha State House ka aan fariisto baan xildhibaanada geynay xildhibaanada deegaanada sa u barno magaalada Columbus kadibna runtii forumkii noogu dambeeyay wuxuu ahaa habeenka Axad ahayd oo forumyadii noo suurtagelin mise wada hadalladii noo suurtagelin Sabtida in Axad geynay marka si fiican buu noogu dhacay programka guud wataa xildhibaan Ismaaciil tartankaagii ugu dambeeyay ee aad u gashay helista xildhibaannimo ee kursiga degmada saddexaad dad baa dhaliilo u soo jeediyay kuwaas oo ah in xildhibaan Ismaaciil uu ka raadiyay codka wadooyin aan munaasab ahayn arrimaha maxaa ka jira boqolkiiba boqol anigu waxaan dhihi lahaa xisbiga dimuqraadiyiinta noogu jirtaa runtii Soomaaliduna taariikhiyan ilaa haddeerba si u badan yihiin boqolkiiba anigu waxaan dhihi lahaa 80 ilaa 90% kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo aan la yeelanayno Ismaaciil Cali Maxamed oo ah xildhibaanka degmada saddexaad magaalada Columbus ee gobolka Ohio xildhibaan Ismaaciil sidoo kale waa qareen ama lawyer isla mar ahaantaana dhinaca sharciga ah howlo fara badan bulshada dhexdeeda ka qabtay xildhibaan Ismaaciil marka laga soo tago xildhibaannimadaada waxaa tahay qareen maxaa ka mid ah adeegyada aad bulshada u qabato Bashiir waxaan mahadcelinayaa walaalkay runtii adeegyo badan bulshada u qabanaa marka waxa ugu badan aan la shaqeyno dadka soo galitaanka oo immigrationka sharciyada xareysanaya hadii noqoto guur hadii noqoto green card ka sharciyadaas hela waa ka caawinaa runtii oo waxaan sameeyaa dambiilayaasha dadka marka dambiyada gala ayagana caawinaa traffic ticketiyada iyo dadka runtii guryaha rentalka qaabilsan dadka guriga eviction la xiriiriya xaladaha marka waa baahiyooyinka ugu ballaaran runtii danyarteena dadkeena Soomaalida ay dadka danyarta guud deegaanadeena ay baahida u baahan yihiin xildhibaan Ismaaciil waxa tahay nin dhalinyaro ah isla mar ahaantaana laba shaqo oo aad u adag haya xildhibaannimo iyo qareennimo ma hesha xilli firaaqa ah oo aad danahaaga gaarka ku qabsato runtii waqtiga aad buu yiri firaaqada runtii baahidiba aad u badan oo dareemi kartay kaligii baana lawyer-ka ah gobolka Ohio dhanba 7 sano dheer kaligii ba lawyer-ka ah dhinaca Soomaalida ah runtii dhinaca xildhibaannimadana aniga iyo Munira xildhibaan ku fadhnay Aniisa Liibaan runtii marka baahidii aad u ballaaran tahay jaariyad oo 60,000 baan nahay marka haddii aad hesho xilli firaaqa maxaad qabataa waxa ugu badan runtii aan sameeyo anigoo macquulna akhris buugaag akhriyo inaan articles ka akhriyo waxa ugu badan waa akhriskan waqti badan galiyaa runtii intaan chance helan runtii waa isku dayaa inaan gymka aado oo mise yani caafimaad ahaan jirka inaan ka shaqeeyo marka labadaas aan ugu badanahay waqtigaan galiyo private ahaan maadaama aad qurbaha ku kortay noloshaadii oo dhan aad ku qaadatay intii badnayd kuma dhahayno xildhibaan Ismaaciil sidee buu ku yahay soccerka ama footballka xagga Yurubiyaanka iyo Afrika footballka Mareykanka ee halka inta la gashto la ordayay see isku tii footballkaas ani ma ciyaarin waa daawadaa runtii aad iyo aad laakiin ma ciyaaro laakiin soccerka caadiga anagu Soomaali ahaan aad baa u ciyaaraa runtii dhawaan laakiin hadda intaan xilkaan igu soo siyaaday ma ciyaarin baa u malnayaa 2 sano ugu dambeysay 3 sano ugu dambeysay laakiin waa runtii rag badan ay yaqaano oo runtii waa ciyaari kara banooni waa tahay xildhibaan Ismaaciil maalmo ka hor Columbus waxaa ka dhacay shir ay isugu yimaadeen madaxda Soomaalida waqooyiga America oo aad adigu martigelintiisa lahayd maxaa loo gal lahaa kulankaas aad baan ka mahadcelinayaa mar labaad walaalkay Bashiir runtii kulankan waa kulan sanad kasta dhaca runtii markastana gobol iyo xildhibaan baa runtii marti loo yahay markii afraad buu hadeer ahaa runtii waqooyiga Mareykan dhanba iyo Canada labadaba isku daray xildhibaanadii marka aniga aan hostiga ahaa runtii hadafkuna waxa way runtii inay xildhibaanada ortakow ismaqlaan ay kulmaan sanadkiiba يعني horumarka ay ka gaareen goboladooda waxyaalayaasha ay ka shaqeynayaan hadana waxa farxadna waa inuu nala joogay safiirkii dalka Soomaaliya marka waxay noo ahayd fursad qaali ah runtii inay koona isbarasho ay u noqoto marka labaadna runtii in laga wada hadlo xaaladaha iyo marxaladaha ka wada shaqeyn karno waa tahay sida aad xustayba waxa marti sharaf ka ahaa ama ku ahaa shirka safiirka Soomaaliya ee Mareykanka ambassador Daahir Xasan Carab kulan ayaa jiray aad safiirka si gooni ah ula qaadateen saxaafaduna ay banaan joog ka ahayd inkastoo aad shir jaraad qabateen haddana waxaanu haata ku weydiinaynaa
wixii aad ka wada hadasheen adinka iyo safiirka. aad iyo aad marka runtii again saa runtii 20 xildhibaan baa nala joogay horta runtii 3 ka yimaaday Canada inta kalena waxay reer Mareykan ka horta wuxuu ahaa kulankii ugu ballaarnaa ka dhaca sanadihii hore aan ka qayb galay runtii anigu Minnesota 2 jeer baa lagu qabtay marna Boston baa lagu qabtay runtii xildhibaanada number yar baa yimaaday oo yacni duruufo daraadeed marka hadda runtii juhdi iyo waqti badan baa gelinay inaan 20 kooda isku keenno kulankaasna runtii aan private ka la helnay ambassador-ka hadafku wuxuu ahaa inay horta ku isbartaan xildhibaanadu iyo safiirka cusub safiirkuna hadda muddo yar oo kooban buu fadhiyaa xilka hadafkeenu wuxuu ahaa wada shaqayn joogta inaan sameeyno waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo runtii tala wadaag ayagana oo kulankaas qaban qaabinta qayb ka ahaa runtii waxyaalaasha laga hadlay way badnaayeen waxa ugu badan horta wuxuu ahaa kow in laga wada hadlay Soomaaliya dawladda maxaa lagu caawin karaa marka Soomaaliya hadda marxalad aad u adag bay maraysaa saa ula socod runtii in cunaqabatayntii laga qaaday in runtii hadda xaalado badan oo badda Soomaaliya xitaa ay ka socdaan iyo runtii la dagaalanka dadkan argixisada ah marka qodobadaas oo dhan barto si guud buu runtii u taabtay safiirku hadafkana wuxuu ahaa runtii maxaan xildhibaanadan ay kula shaqeyn karaan dawladda Mareykan si u fududeeyaan xiriirka kaana runtii kulan aad iyo aad u qiimo badan buu ahaa runtii waa tahay xildhibaane mas'uuliyiinta Soomaalida ee xildhibaanada ay ka kala yimid gobolada Mareykanka iyo Canada waxay u badnaayeen dad dhalinyaro ah ku dhashay qurbaha ama ayagoo yar soo galay siyaasadda xisbiyada ay ka kala tirsan yihiin ama magaalooyinka ay ka yimaadeen ayayna ku shaqaynayaan maxay u tari karaan Soomaaliya runtii waxay ugu tari karaan horta waa run oo xildhibaanada wada yimaaday kulli waxay ahayn xildhibaano gobollo iyo deegaanada hoose marka xildhibaan federal kuma jirin laakiin still anagu hadafkeenu wuxuu ahaa runtii inaan anagu isku xiranahay xildhibaanadu waan isweydaarsanno runtii anagu gobolladeena iyo deegaanadeena waxaan ka qabanno marka sharciyooyin badan baa runtii laga keenay gobollada kala duwan laga kala yimaaday marka horta wuxuu ahaa isweydaarsi fakar iyo xildhibaanada inay isku xirmadaan hadafka ugu horeeya midka labaadna wuxuu ahaa runtii dalkeena aan ka nimaanay anagu aan jecelnahay runtii maxaan ku siyaadin karnaa sababta ay ku tahay bulsho ballaaran diaspora baa nahay awood leh marka xaaladahu runtii uu safiirku taabtay oo ahaa in dawladda Mareykan wixii Soomaaliya hadaf ay leedahay agenda in dawladda Soomaaliya noo keento annaguna wixii aan garab ku siin karno mise hay'adaha ku xiri karno mise wixii anagu advocacy aan u doodi karnaa ku caawino kaana runtii wuxuu noo ahaa kulan aad u qiimo badan oo runtii aan rajaynayo runtii inaan insha Allah mirihiisa la arki doono sanadaha soo socda insha Allah xildhibaan Ismaaciil adiga ayaan ka bilaabaynaa dhalinyaradaas xildhibaanada ee deegaanada hoose iyo degmooyinka ama gobolada ka yimidna dabcan su'aashan way kula qabaan waxa tiin dad dhalinyar ku biiray siyaasadda deegaanada ay ka tirsan yihiin xildhibaanada ay ka yihiin waxaan filaynaa in golayaashaas ay idinkaga horeeyeen maqaawiir siyaasadeed maxaad ka soo heli kartaan maxaad ka soo dhicin kartaan oo aad bulshadiina u keeni kartaan oo ka soo gadi kartaan dadkaas aad iyo aad waa su'aal fiican runtii wax badan baa dadka gadi karnaa sababta ay ku tahay anagu hadda jaaliyad aad u ballaaran baan nahay Soomaalida hadii la fiiriyo dalka Mareykan guud runtii 200,000 baan nahay marka numberkan waa sii badanaya runtii markay generationada cusub dhalmadaan marka anagu wax ugu muhiimsan waxa horta kow inaan muuqan karno وقف Soomaaliya uu soo baxay runtii isbedel orta fakar ahaan iyo aqliyan bay ku saameynaysaa bulshada kala duwan oo dunida ku noolta ka marka orta muuqashada ugu horeysa orta saameyn bay leedahay marka labaadna waxa way cunsurinimada marar badan dadka minority ama soo galitaankaas oo la socotid cunsurnimo badan bay la kulmaan iyo yacni handadaad iyo xumaan marka inaan muuqano anagu aan u doodi karno dadka aan mathalayno anagu Mareykan dalkan ah haddana oo soo xildhibaana sharaf ay noqotay anagana kaana mid waaye mid kalena waxa runtii baahiyooyinka khaaska anagana haysta oo dadka immigrant-iga ama soo galitaanka haysta inaan u doonno tusaale hada ku sii xitaa tusaale kale gobolka Minnesota sharciyo badan baa laga keenay oo la xiriiraya dadka soo galitaanka inay heli karaan license inay gaari ku wadan karaan inay kaar caafimaad heli karaan in jaamacadaha qofka aaday xitaa runtii incomekiisa hadduu ka yar yahay 80,000 inuu free ku heli karo qodobadaas dhan waa xildhibaanadeena Minnesota sharafta la soo dhiciyay anigu hadda gobolka Ohio ka runtii saa la socotiin naar oo dhaqaale badan oo soo dhicin hay'adaheena but also sharciyada laftigooda anigana waa keenay waana ka push gareynaya ilaa haddeer laakiin marxalado badan baa gobolkan xanabay anagu haddaan minority ku nahay xisbigeena marka runtii gobolka Washington tusaale xildhibaanku wax badan bay ka qabteen xildhibaanada ka yimaadeen main gobolka ah runtii xildhibaanada deeqa dalac iyo maana cabdi iyo Yusuf ayagana way ka hadlayeen horumarada ay ka gaareen runtii inuu dagaalamaan dadka soo galitaanka ah marka runtii wax isbedel badan waa sameynay waxaan rajaynaynaa isku xirnaanta inay fakar isku darsan karno biilasheena sharciyada kala duwan kala keeni karno kana waxaan rajaynaynaa inaan sii ballaarno runtii insha Allah socda xildhibaan waxaa jira dhaliilo loo soo jeedinayo habkii loo qabtay kulankaas oo dad bulshada dhexdeeda saameyn ku leh Ohio loo diiday ama laga saaray shirka dhaliilaha maxaa ka jira
runtii dhaliilahaas anigu waa maqlay runtii aad iyo aad horta haddaan si guudna anigu runtii raaligelin guud waa bixinay oo barnaamijka horta 2 beri iyo bar buu ahaa soconayay alxamdulilah boqolkiiba 90% si fiican buu noogu dhacay runtii cashadii ugu horeysay sharafta lahayd aan qabanay kadibna breakfastigii private-ka uu ahaa runtii safiirku iyo xildhibaanadu inay isbartaan kadibna waxaan geynay golaha magaalada oo Columbus sida ay loo qaabilay waxaa qaabishay councilwoman Nancy De Acquire oo xildhibaanooyin ka mid ah deegaanka hoose farxad bay noo ahayd habeenkii kulankii sabtida dhacay baan runtii ka raaligelinay bulshada inuu barnaamijkii sidii u ahaa u dhicin xoogaa dib u dhac yar ku yimaaday sababta ay ku tahay bulshada nambarka ballaaran u soo baxay daraadeed iyo runtii safiirkii nala joogay xildhibaanadii dad badanna ay u yimaadeen bulshadii number anaga ka badnaa intaa filanaynay kaana dib u dhac yar baa ku dhacay runtii programka waqtigu bilaabanayay waan ka raaligelinay kadibna maalintii ugu dambeysay runtii waxaan geynay golaha state house-ka aan fariisto baan xildhibaanadii geynay xildhibaanada deegaanada saa u barno magaalada Columbus kadibna runtii forumkii noogu dambeeyay wuxuu ahaa habeenka axad ahayd oo forumyadii noo suurtagelin mise wada hadalladii noo suurtagelin sabtida inaan axadda geynay marka si fiican buu noogu dhacay programka guud only habeenkii sabtida ahaa baa dib u dhac yar yimaadeen waa ka raaligelinay bulshadana runtii guud ahaan gobolada ay ka yimaadeen madaxdan oo Ohio ku jirto barnaamijyadii looga hadlay doodihiinii ama panel discussion-kii waxaa ka mid ahaa arrimaha gun violence-ga ama dhibaatooyinka hubka uu leeyahay dhibaatooyinka hubka uu leeyahayna Soomaalidu waxay la qabtaa bulshada kale marka maxaad ka qaban kartaan arrimaha la xiriira dhibaatooyinka hubka ee haysta sida guud bulshada gaar ahaan Soomaalida maxaad ka qaban kartaan oo ka tari kartaan sax waa runta waa issue runtii markas taagan oo soo laabta especially hubka la gadanay dalkan waana labada xisbi waxay kala fakar duwan yihiin qodobada ugu muhiimsan laga doodo muddo dheer laga doodayay xisbiga jamhuuriga mise republicaanka wuxuu aaminsan yahay una dhahayaa qof kasta inuu hubku rabo gato annaguna xisbiga dimuqraadiga xildhibaanada dhan baan u hadlay afkooda kulligaan xisbiga dimuqraadiga ka soo wada galnay xildhibaan kasta Mareykanka ku nool Soomaaliya kulli xisbiga dimuqraadiga ka soo galeen sababta ay ku tahayna wax kala ma xisbiga waxaan ku doornay qodobadaas ka mid ah oo dhahaya runtii hubku in la ilaaliyo dad in sharciyo laga keeno oo dadka background lagu sameeyo qofka baaritaan lagu sameeyo qofka aqligiisa iyo maskaxdiisa laakiin taa Ohio waa dhinac bay iska dhigtay baaritaanadii badnaa waa la joojiyay sax waa la joojiyay in sababta ay ku tahay xisbiga jamhuuriga Ohio awood ku leh laakiin si guud ah hadda doorasho ballaaran waa socotaa qodobada la isku haystana waxa ka mid ah gun violence iyo hubka ah oo xisbiga anagu dimuqraadi uu ku doodayo in sharciyo badan la keeno waa si hubka loo yareeyo sababta ay ku tahay dilkiiba batay dadka oo maskaxiyan u caafimaad qabin ba hubkii si fudud ku helaya qodobadaas oo dhan ba runtii ba sharciyo badan ka keenay waxaan rajaynaynaa runtii dood soconaysa inay noqon doonto laakiin anagu inay bulshada majority anaga fakarkeena ay wataan dhahayaan hubkan waa hub dhibaato bulshada u geyn kara in la cadida waa loo baahan yahay waa tahay xildhibaanadu mahadsan tahay haatan waxaanu eegaynaa arrimaha la xiriira dhinaca doorashada in ka yar 2 toddobaad ayaa ka dhiman xilliga ay dhici lahayd doorashada guud ee dalkan Mareykanka saadaalin la sameeyayna labada xisbi waxaa la sheegay in madaxweynihii hore Donald Trump iyo jamhuurigu ay hogaaminayaan dhibco gaaraya ilaa 2 dhibcood iyo wax la jira maxaa ka dhex socda xisbiga dimuqraadiga waa su'aal fiican runtii marka la baaro si buuxa oo polls kala duwan mise baritaan kala duwan la fiiriyo horta way sameeyeen marar badan waxa waaye polls-ka mar 1 point iyo 2 point waa macquul inuu kala sareeyo kuwaasna waxa la dhahaa majority waa wuxuu ku jiraa runtii inuu khaldami karo marka perfect ma aha polku laakiin runtii polashka kala duwanaa gobolada la fiiriyay kulli horta waa taay waxaana la yiri lana isku raacay runtii in kontonkiisana ugu dambeysay doorashadii ugu dhaweyd inay tahay the closest election waa hadii nambarada la fiiriyo marka doorashada barbar ay siman yihiin hadii la barbar dhigo goboladana hadii la fiiriyo xataa adiga 6 gobol baa runtii doorashada dhanba ku soo koobnaan doonta goboladaas runtii nambaradooda ayaga runtii waxay ku jiraan runtii waa siman yihiin labadoodaba marka doorasho aad u culus waa runtii annaguna markasta wacyigelinta waa inaad si ballaaran runtii especially bulshooyinkeena oo luqadda Ingiriiska mar badan ku hadlin wacyigelin extra u baahan waana wadnaa runtii shaqadaas waana sii wada doonaa insha Allah marka ay timaado dadka people of color ama minority-ga Soomaalidu waa qayb ka tahay marka la eego doorashadan yay dantooda ku jirtaa labada xisbi boqolkiiba boqol anigu waxaan dhihi lahaa xisbiga dimuqraadiga dantan noogu jirtaa runtii Soomaaliduna taariikhiyan ilaa hadeerba si u badan yihiin boqolkiiba anigu waxaan dhihi lahaa 80 ilaa 90% boqolkiiba 90 inay xisbiga dimuqraadiga u codeeyaan wax kalena ma aho cududaar baa jirta labada xisbi hadii la fiiriyo taariikhdoodii iyo historygoodii xisbina runtii jamhuurigu xisbi wax way ku salaysan runtii inuu dadka hantida haysta dhaqaalaha haysta mise dadka cadaanka mise dadka ganacsiyaasha waaweyn u adeega runtii bayska ugu badan oo lagu doodo kaasa ka mid ah xisbiga dimuqraadiga waa xisbi runtii dad danyarta ah
asaaskiisina uu ahaa dadka shaqaalayaasha shaqaynayay buu u doodayay unionska iyo laborka meelahay asaas ka bilowdeen waxaas ka mid ahaa kuwaanna waxay u badnaayeen dadka employerska mise kambaniyada waaweyn leh marka runtii in waxa dhiilaa Soomaaliya hadaan nahay oo macquul xisbiga dimuqraadiga dhaliilo u hayno mise wax qodobo ah kala fakar duwan nahay laakiin way ku qaybsameen Soomaalida marka la fiiriyo gobolka Minnesota oo kale waxaa la arkay dad culimo ah oo dhabarka dambe ee Donald Trump taagan dadkaasi Soomaali ma ahmiya may Soomaali way yihiin Soomaalimada kama saari karna laakiin waxa dhihi lahaa runtii dad yar oo number kooban waaye Minnesota aad baan ugu xirnay xildhibaanadana waa ka warhay culimadana isku xiranahay boqolkiiba laakiin 90% waxa dhihi lahaa xisbiga bay taageersan laakiin ayagoo taageersan bay haddana istii dhaliil u hayn karaan dhihi karaan xisbiga dimuqraadigu wax yaryar badan buu ka gaabsaday xaaladaha ugu badan taabanaya aniga waxa xaaladaha waxa ka socda Middle Eastiga waana dareemi karaa runtii inaan markaa anagu dhaliilnay xisbigu oo xisbiga fakarkeena ku darsano waa loo baahan yahay laakiin se waxa aaminsanahay anigu xisbiga jamhuuriga runtii oo runtii ka soo horjeeda anaga jiritaankeena oo Donald Trump haduu soo laabto mar labaad hadafkiisa ugu ballaaran uu yahay uu dhahayo Muslim banki iyo cunsurnimadii muslimiinta iyo danyarta baan soo celinaya mar labaad uma maleynay ninkaas inuu jacaylno hay anagu marka waxay la tahay inuu xisbigan baa dhaliili karnaa fakar ku darsan karnaa runtii aana de qayb ka nahay aanu ku xoogsan karnaa runtii fakarkeena aqligeena marka laga tago qiyaasta iyo malahaaga ma filaysaan inaad heshaan ka xisbiga dimuqraadi ahaan codka dadka muslimiinta ah oo la og yahay dhibaatooyinka ka jira wadamadooda haatanna xisbiga dimuqraadiga oo Mareykanku hogaaminayo ay dalalka ka wadaan ma filaysaan inaad heshaan codka dadka muslimiinta iyo dadka kale aad iyo waa helinaa bay la tahay runtii boqolkiiba boqol laakiin sidee ma dhihi karo boqolkiiba boqol baa noo codeynaya runtii nambaradii hore noo codeyn jiray way ka yaraanayaan baan filanaya anigu sababta ay ku tahay runtii marxalado badan baa adduunyada ka socda runtii dagaalo badan especially Middle Eastiga saameeyay bulshadeena annaguna yacni dhaliilo badan waa u haynaa xisbiga oo uga fakar duwanahay aan aaminsanahay codkeena muslim ahaan maybe laba maqlan levelku gaar lahaa kaana runtii wax way su'aashan hortaaladan ma isaga baxna xisbigu xisbi kale ma aadna oo runtii cunsurinugu oo jiritaankaaga nacab waa maya xisbiga markayna ku adkaysano fakarkeena ku darsano codayno runtii aan laakiin awooddeena u isticmaalno sida hadhow influencegeena u sii bato waa muhiim marka waan aaminsanahay inay u codaynayaan laakiin waa macquul nambaradii codayn jiray inay ka yar yihiin waa macquul waxaan u imaanaynaa Ismaaciil Maxamed iyo kursiga degmada saddexaad waqtigaagii labaad ayaad kursigaa ku fadhidaa bal xagee waxaa ugu marayaan doorashooyinkaaga iyo campaignkaaga xagee buu maraya ما شاء الله campaign isfiican buu noogu socdaa alxamdulillah sanadkan hadda rabto anigu qof ila ordiyay ma jiro waqtigan doorashadan general election kan kaligii baa ordaya qof ila ordiyay ma jiro alxamdulillah laakiin si runtii wax badan baa noo qabsamay muddadii aan fadhinay 2 sano hadda ka yar baan fadhiyay xilku runtii hadii la dhaho sharciyo badan aan keenay runtii aan u doodeynay ay kamid yihiin inta ku taabto minimum wage ka lacagta ugu yar qofka uu qaadan karo gobolka Ohio waa $10.45 waa lacag aad u yar sharciga aan anigu keenay aniga Don Tavis Girls wax leeban kala waxa kamida in loo qaado $15 laga dhigo kadibna 18 kadibna 21 lacagta marka mushaharka qofku qaadanay kor ay ku cayso sharciyo badan oo la xiriira license-ga ka soo gelitaanka dadku sharci wali qaadanin license inay qaataan gaari ku wadaan iyo kaar caafimaadin helaan ayagana bill waa ka keenay bill kala ka keenay oo school lunches ka mise qadooyinka carruurta ay cunaan aniri cunug kasta dalkan ku nool income asoo ku xirnayn qada inuu heli karaa fiican iskuulka aadayo oo lagu xirin income iyo dhaqaale marka runtii sharciyo badan runtii waa keenay ay waliba sii saaran yihiin hadii la fiiriyo dhaqaalaha oo soo dhicin hay'adaha Soomaalida hay'adooyin badan runtii Soomaaliya iyo danyar ah runtii deegaanka ka shaqeeya lacag ilaa 2.5 milyan lacag oo soo dhicinay labadii sano ugu dambeysay marka runtii wax badan waa noo suurto galeen wax badan waa naga dhiman yihiin runtii anaga hadafkeena waxa way runtii aan rajaynaynaa runtii inaan xoog saarnaan golahan anagu majority uga noqon xisbigeena dimuqraadiga kursiga xildhibaannimo ee aad haatan ku fadhido meeqa jeer ayuu qofku xildhibaanku ku soo noqon karaa oo kursiga uu tartami karaa sax wuxuu ku soo laaban karaa 8 sano way total yaani runtii waa marka waa dareemi kartaa 4 jeer waay markiiba waa 2 sano ka bacdina runtii qofku waa sharciyan inuu qofka hal term mise 2 sano qofku inuu ka haro oo qof kala soo galo one term kadibna qofka mar labaad uu ku soo laaban karaa marka waa term limit uu yahay oo 8 sano ugu dheer laakiin qofka haduu hal term u dhaxaysiyo mar labaad qofka soo laaban karaa ordi karaa wataa xildhibaan Ismaaciil tartankaagii ugu dambeeyay ee aad u gashay helista xildhibaannimo ee kursiga degmada saddexaad dad baa dhaliilo u soo jeediyay kuwaas oo ah in xildhibaan Ismaaciil uu ka raadiyay codka wadooyin aan munaasab ahayn arrimaha maxaa ka jira anigu horta Soomaalida horta waa inay fahmaan inaa marka xildhibaan tahay Mareykanka 140 kun oo qof mathalna oo kala duwan
cadaan madow yani diin kasta iyo fakar kasta mar qofku inuu ogaan karo xildhibaan Soomaaliya ma nihin anagu waa in la fahmo I think kaasna waa wacyigelinta in la sii wado horta weligeed muhiim lama yaabi karo laakiin runtii jaaliyad kasta iyo bulsho kasta runtii inaa matashay diinta ku amraysa runtii marka runtii dadku Soomaalida laakiin waa dareemi karaa waa bulshadana inoo badan tahay marka waxay u maleeyaan kaligeena deegaanka deganahay laakiin deegaanku waa number yar baa ka nahay runtii dil la fiiriyo bulshada guud marka deegaanka kasta iyo bulsho kasta inaa yani fakarkooda iyo aqligooda iyo ku sharaftid waa muhiim runtii aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaas waxa uu ahaa xildhibaan Ismaaciil Maxamed oo ah xildhibaanka degmada saddexaad magaalada Columbus ee gobolka Ohio xildhibaanku waraysigan inuu naga ogolaado waan uga mahadcelinaynaa anigoo Bashiir Taajir ayaa idin la socodsiinayay tan iyo kulantideena dambe sidaas iyo nabadgelyo